madaxweyne farmaajo ayaa mar kale u tartamaya xafiiska looga taliyo dalka. dad badan ayaa aaminsan inay macquul tahay in dib loo doorto farmaajo maalinta beri ah. su'aalaha ugu badan ee yaalla suuqa siyaasadda waa waxa dhici kara haddii uu farmaajo mar kale guulaysto. tixanaha doorashada Soomaaliya kuma jirto madaxweyne 2 jeer la doortay, balse dhinaca kale waxaa jira qodob xiiso leh kaasoo ah doorashooyinka u dambeeyay oo si musuqa loo soo xulay xildhibaanada waa la wada aqbalay natiijada doorashada madaxweynaha. hal mid ayaa sababi jirtay in la wada aqbalo natiijada doorashada madaxweynaha, waxayna ahayd in mar walba laga adkaan jiray madaxweynihii doorashada qabtay ee xafiiska joogay, taasoo xildhibaanada xaqdarada ku soo baxay ka dhigi jirtay kuwa la aqbalo. berri wax walba ayaa macquul ah. waa adag tahay in farmaajo laga saaro dadka kaalmaha hore ka galaya wareegga koowaad ee doorashada madaxweynaha, balse lama cabiri karo waxa dhici doona wareegga labaad iyo qaabka loo kala horrayn doono. ololaha ay musharaxiintu caawa ka wadaan magaalada Muqdisho waa kuwa aad isugu dhow. xildhibaanaduna jiko walba ayay taagan yihiin, lamana yaqaano cidda ay ugu dambayn cod ka siin doonaan. sanado badan kadib markii ugu horreysay waxaa jira walaac ku saabsan in natiijada doorashada madaxweynaha la wada aqbali waayo. sidaan xogta ku helnay, mucaaradka qaar waxay ka fakarayaan inay fawdo geliyaan goobta haddii uu farmaajo masaafo dheer ku hogaamiyo codaynta. dhinaca kale, kooxda farmaajo iyagana xog aan taas ka fogeyn ayaa dhankooda taalla, laakiin sida mucaaradka mawduuc xoogan uma ahan arrintan. farmaajo haddii uu sifo sharciya ku adkaado berri wuxuu noqonayaa madaxweynaha Soomaaliya ee 4 sano ee soo socota. uma badna in laga hor imaan doono qof sifo sharciya lagu doortay, balse markii la eego xaalka ay isla soo mareen labada dhinac ee mucaaradka iyo muxaafidku 2 sano ee ugu dambeysay, wax walba ayaa macquul ah inta berri lagu jiro hoolka doorashada. doodda dadka qaar ee ah in reer Muqdisho ay deegaan ahaan ku adag tahay inay mar labaad farmaajo laqaan waxay noqon kartaa wax ku eg ololaha doorashada, oo dadka deegaanka iyo siyaasiyiintooduba waxay fahamsan yihiin dhibka laga soo maray dowladnimada Soomaaliya ayay leeyihiin falanqeeyaashu. labada dhinac ee mucaaradka iyo muxaafidkaba waxaa hortaalla inay hamba siyaasadeed oo mustaqbalkaas samaystaan oo ay u sii diyaargaroobaan aqbalka natiijada ayay qabaan aqoon-yahanada ka faalloonaya natiijada doorashada berri. marka laga tago walaacaas ku saabsan aqbalka natiijada, dhinaca kale xildhibaanada ayaa saacadihii la soo dhaafay waxay bilaabeen ugaarsiga dhaqaalaha ay bixinayaan musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha. mar walba madaxweynaha xafiiska jooga iyo kooxdiisa ayaa loo badinayaa inay ugu jeeb weynaan karaan xagga qarashka, iyadoo kooxaha mucaaradku ay mar walba degi jireen meel masaafo 50% u jirta dhaqaale ahaan madaxweynaha xafiiska jooga. saadaasha doorashada madaxweynaha Soomaaliya aad looguma degdegi karo maadaama ay musharaxiintu tabar ahaan aad isugu soo dhawaadeen saacadihii la soo dhaafay. maxay kula tahay adiga?